waxaan marka ugu horeysa soo dhaweynayaa wafdiga ballaaran oo maanta garow nagu soo booqday oo hogaaminayay ku-xigeenka SRG-ga oo ay ka mid ahaayeen EU iyo IGAD iyo AMISOM African Union iyo inta kaleeto la socotay runtii waxay ka mid ahayd kulamada joogtada ah ee mar walba ay ku maraan dalka Soomaaliya mar horena ay ugu yimaadeen Puntland oo la xiriira sidii geedi socodka siyaasadeed ee dalka mar walba iyo amni loo horumarin lahaa kulankaas oo runtii waqti fiican qaatay dawladda Puntlandna ay la wadaagtay sidii loo gudbi lahaa marxaladaha hadda lagu jiro ku saabsan sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata dabcan hawlo badan baa la soo qabtay muddadii u dambeysay heshiiskii 17kii bishii 9aad lagu galay Muqdisho madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha dawladda federaalka ku wada galeen baarlamaanka labadiisa aqalna ay ansixiyeen iyo kii u dambeeyay oo ku saabsanaa habraacyo loogu talagalay in lagu fududeeyo doorashadaas ay ku dhacday 1 October wili waxaa dhiman sidii hawshaas loo maamul lahaa oo dhinaca maamulka doorashada iyo gudiyadoodii oo hadda gacanta lagu hayo waxyaabo badan oo u baahan in la saxana ay ku jiraan laakiin wada hadallo iyo shaqo ka socota waxaan rajaynayaa doorasho waqtigeedii dhacda oo kalsooni lagu wada qabo oo dhammaan dhinacyada danaynaya doorashooyinkuna ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo wixii tabasho ah oo ay ka jiraan qodobada gaarkoodna waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono Puntlandna mar walba roolka ama kaalinta ay ku leedahay dawlad dhiska Soomaaliya ay qaadan doonto aragtiyaha xalka loogu heli karana waxay la wadaagtay madaxda maanta soo booqatay waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inta dhimanna in waqtigeeda iyo munaasab ku tahay aan ka hadli doono aad baan uga mahadcelinayaa inay noo yimaadaan waxaan rajaynayaa qodobadii aan ka wada hadalnay oo dhan inay ahaadaan qodobo dhaxalgal noqon doona oo wax ka tari doona deganaanshaha dalka iyo horsocodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa mujtamaca Soomaaliyeed marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen inay u anba bixi doonaan marxalad deganaansho iyo nabadgelyo ay ku dheehan tahay soo dhawaad mahadsantahay